idin ka mahad celinayna sida weyn ee noo soo dhameyseen annagoo ah madaxdii gobolka saaxil oo hogaaminayay barasaabkii gobolku aad baan idinkaga mahad celinaa waa iska kooban yahay falilaahi alxamdu waxa sheegteen in runtii baahi weyn ay u qabteen dugsigan annaguna aanu dareensanayn laba qodob baa halkan aan ku darayaa waa mide waa uga mahad celinaynaa ka waxbarasho ahaan maamulka dawladda hoose ee Cabdishakuur Hormuudka ka yahay baahida ay ka jawaabeen iyo dhismaha ay hirgeliyeen waa uga mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ku siisayna waa uga mahad celinaynaa idinkana kalmaduun baan idin oranayaa halka maanta labada aqal ee la dhisay ee macallimiintiina joogaan ubadka yar yar in looga faa'iideeyo wax lagu baro ayaa loo dhisay yay dhicin iyadoo macallinkii joogo oo aqalkii dhisan yahay in caruur aan waxba dhiganaynin magaalada joogto yay dhicin taas waxay noqonaysaa dambi ubadka laga galay bay noqonaysaa maadaama loo dhisay oo macallinkii joogo haddana caruur magaalada joogta ay waxbarasho seegto arrintaa dambigeeda waxa yeelanaya cidda markaa mas'uuliyadda leh arrintaa ka taxadira labada galaasna waa inay noqdaan laba galaas oo buuxa maadaama ay deegaanku beeraley yahay bulsho badanina ay ku nooshahay waxa loo baahan yahay in la camiro oo caruurta looga faa'iideeyo ubadka yar yar ayaynu ay doonaa kaasaynu gacantiisa ku dhacaynaa mustaqbalka adiga mas'uuliyad uu ka noqonaya haddaad maanta wax bartana si wanaagsan buu hadhow mas'uulkaaga noqonaya haddaad maanta dayacdana asna hadhow buu ku dayacaya marka ha loo dadaalo dawlad iyo shacabba ubadka yar baynu dadaalaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahad celinayaa golaha deegaanka ee degmada Berbera oo runtii markasta waxbarashada la dhinac taagan heel iyo hooba la dhinac taagan arrintan hirgeliyay waana arrin taariikhiya idinkana waxa la idinka baahan yahay inaad dadaal muujisaan oo ku tartantaan aqoonta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.